واجبك قفك مسلم كقرآن كدنك سكسارا علماء واحد هذا أسلم بوا أفر شيء ككوادو إنه أخريه أو قراءة صحيحة أخريه أو كنت عبدو إلهي ودواد عصري قندم بينه هدى شوقنا دادا لا أدو بدن بالقو بحي سيدي عرب كاللو توسين لها قرآن كان الله صحي لها سيب الدائرت إن كستانو قيدتك واوين إنه آدو قوع وعسين هاي ملائينين يدين مدارسية ملعامد الله فرابك وفعنا لها لقد صومالي قاسن نقضي مدك يرن قرآن كان لغو درقيه وضيبنا مقاحدة اسكفرديه وأنا دقان هذا غلطان شيء قال لبات يا قرآن كوين قم دنيا هاي وحويا الفهم والتدبر إن الآخر يقول معنى الصمين ميسير رسالة حق ربك تمي سبحانه وتعالى فرنت إلهي روكياني إنو صدري إني نفهمنا أدوغنو ومعاني دي صدوحنا وأدعنا وحا وشيغيو قدرك الصدحات فهم كقداشي وإني نكو عمل فالله وكل قنو ووحي نكو هنونن يكو هنونسنو وحوي نقرب ينكر ريبطونه قضب كافراد علماء تلمامان وين نكب باقنا وضدك انت كلي قارسينه تعلما وتعليما خيركم من تعلم القرآن وعلمه إذا علماء واحد هذا نفرت شيء مهمة مركا القرآن كلا دول تاغين هي أخرنته يفهمك يتدبرك يا عملك يقدغنك iyo dacwada iyo gaarsiinta afarta shay ayaa quraanka la budaba yiraahdaan qof kasta oo muslimi inuu la yimaado hadaba quraanka marka la akhriyo ama si la dhageysto dadku quraanka dhageysigiisa saddex qaybood bay u qaybsamaan bay culimadu sheegaan iyagoo ka daliishanaya aayadii quraanka ilaahay tilmaamayay wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashad minhum batsha فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وحي علماء كنت المامنا يضطني إلهي وحولين في ذلك لذكرى قرآن كان وانية وحكو قاضش وقس هي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد مد قلب له dadka badba qulubtoodu mayit tahay kuwa qalbigiisu mayit yahay marka horeba hanuunuma cuntamo qaar baan qalbigiisu mayit ahayn laakiin gaafil can اlistimaaca wax kaluu ku mashquulsan yahay adduun iyo dhan kale inuu ka shaqeeyo laakiin inuu akhriyo ilaahay kitaabkiisa ama se dhegaysto ama weedhan rabbi inay soo gaadho ama u diyaar ahayn mid baa labada tanba xay alqalb mustacid xaadir alqalbina kaasi waa kawaanadiisu anfacdo waxay dhahaan dadka waxay la mid yihiin buu ibnu alqayim aljawzi ku tilmaama saddexdani waxay ka dhigan yihiin buu yidhi ka koowaad waa nin indhala dee ninka indhaale cadceed iyo iftiin waxba kama faa'iido waa indhala'yi ka labaadna bay idhahdeen waa nin indha qaba laakiin wixii la rabay inuu eego ma eegayo meel kale indhihiisu ku qalladan yihin kaasina waa kii qalbiga xayigaa lahaa laakiin aanu jeedin ka saddexaadna waa nin indhana qaba wixii dantiisa ahaa ee loogu talagalay inuu eegana eegaya